Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada muuqaal cusub. Waxaan qaadanaynaa maanta daawooyinka loo isticmaalo gaaska. Maxaad ka taqaanaa daawooyinka loo isticmaalo gaaska? Kow, waxaan qaadanaynaa qaybta tablet, qaybta syrup, qaybta injectionka iyo qaybta capsule-ka. Waxaan ku bilaabaynaa qaybta tabletka. Qaybta tabletka waxaa loo yaqaanaa daawadan gaaska loo isticmaalo Zantac tablet iyo Ibrax daawada loo isticmaalo Ibrax-ka oo inta badan loo siiyo haweenka uurka leh. Waxaa kaloo jirto daawada la yiraahdo Maalox oo syrup ah iyo Omeprazole capsule ah iyo Omeprazole injection ah. Labadaas waa labada daawo ee hadba mar walbeeta la siiyo bukaanka qabo gaaska ama aadka u dhibayo boog caloleedka. Waxaa kaloo sii kartaa Aluu acid oo ah syrup iyo Agmac oo ah syrup iyo Ibucojal oo ayadana syrup ah. Ogsoonow Ranitidine inay tahay daawo injection inta badan loo isticmaalo. Waxaa kaloo jiro Iberazole capsule oo ah asna capsule oo loo isticmaalo gaaska. Waxaa kaloo jiro daawo la dhahayo Saglo oo asna capsule ah oo loo isticmaalo gaaska. iyo Lansoprazole oo asna capsule ah oo loo isticmaalo daawo gaas inay tahay. Weliba aadka una yaraynayso qofka isticmaalayo ama qaba daawada gaaska ama xanuunka gaaska. Ogsoonow daawo waxaa jirta gaas loo isticmaalo oo la dhaho BBI. Cashirkeena nooguma jirto laakiin waa idiin faa'iideynayaa. BBI waxaa laga soo gaabiyey Proton Pump Inhibitor. 40 miligram ay ku imaataa, 20 miligram ay ku imaataa. Dadka waaweyn ayaa isticmaalo. Halkan ayaan kusoo koobaynaa cashirkeena daawooyinka gaaska loo isticmaalo. Wabilaahi tawfiiq, is aragti dambe oo xiiso leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.